doorashooyinkii madaxtinimo ee waddankaasi Iiraan waxaa la bilaabay in la tiriyo codadka maadaama la soo xiray xarumihii codbixinta inkastoo meelaha qaar la soo sheegayo in waqtiga loo kordhiyay si shacabka weli dhiman ay codadkooda ay u dhiibtaan. kanaalka Al-Jazeera ayaa tabinaya inay bilaabatay tirinta codadkii ay shacabka dalkaasi Iiraan ay ka dhiibteen doorashadii ka dhacday waddankaasi maalintii Jumcada ahayd. inkastoo la soo xiray xarumihii codbixinta iyo doorashooyinka madaxtinimo ee waddankaasi kadib markii la tilmaamay in saacado lagu daray waqtigii codbixinta la soo xirayay. tirada dadka iyagoo codka baxsanayay ee ka dhiibanaya codadkoodii doorashada ayaa waxaa lagu sheegay in ay aad u yarayd marka loo eego doorashooyinkii hore. guddiga doorashooyinka ee taabacsan wasaaradda arrimaha gudaha waddankaasi Iiraan ayaa tilmaamay in waqti dheeraad ah ay ku dareen doorashadii ka dhacday waddankaasi Iiraan. waxaa la soo gaarsiiyey ilaa xalay saq dhexe 8 saac waxaana la tilmaamayaa meelaha qaar in saaka oo sabti xitaa ay soo gaari karto. afhayeen u hadlaya guddiga wax ka beddelka dastuurka ee waddankaasi Iiraan ayaa waxa uu sheegay in xarumaha codbixinta ay muhiim ay ahayd in ay sii furnaadaan waqti dheeraad ah dadka oo iyagu doonaya in ay weli ay codadkoodu ay dhiibtaan. doorashadaasi 4 musharax ayaa si weyn ugu tartamaysay waxaana ka mid ah madaxa golaha garsoorka Ibrahim Raisi iyo agaasimihii hore ee bangiga dhexe waddankaasi Iiraan Cabdinaasir Hamti iyo Muxsin Rida iyo sidoo kale garsoore la yiraahdo Zaada Hashimi. ololaha musharaxiintaasi ayaa waxaa la tilmaamay in ay iyaguba ay galeen waqti dheeraad ah oo ay sameynayeen meelaha qaar in ay dadka ay ugu baaqaan in codadkoodu ay siiyaan. warbaahinta rasmiga ayaa soo xiganaysa musharax Ibrahim Raisi oo isagu codkiisa dhiibanaya inuu ugu baaqayay dadka in ay siyaasadda Iiraan dhinacay u jiheeyaan ayna codka isagu ay siiyaan. sidoo kale waxa uu shaacu ka qaaday in ay ka hortagi doonaan wax walba oo qaladaad ah oo ay ku arkaan guddiga doorashada ee taabacsan wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi Iiraan. madaxa la socodka doorashooyinka ee xukuumadda waddankaasi Iiraan ayaa waxa uusan weli faahfaahin ka bixin tirada rasmiga ah ee iyagu u soo baxday inay codkoodu ay dhiibtaan, balse waxaa la tilmaamay in ay xaq ay u lahaayeen 59 milyan oo qof oo ku nool waddankaasi Iiraan in ay tagaan goobihii la dhigay sanaadiiqda codbixinta. golaha wax ka beddelka dastuurka ee waddankaasi Iiraan ayaa iyagu waxa ay tilmaameen in warbixin weliba oo soo baxda oo tilmaamaysa in tiradii loo baahnaa aysan cod ka dhiiban doorashada ay noqon doonto mid meel la iska dhigo. waxaan suurtagal ahayn ayaa la yidhi in wararkaasi loo qaato mid dhab ah. waxaa la suurtagelin doona ayaa la yidhi warbixinada kale ee ka imaanaya guddiga doorashada. afhayeenka golahaasi Cabbaas Kadaqaay oo isagu warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in meelaha qaar laga soo sheegay dhibaatooyin dhinaca farsamada ah in ay bilaabato codka in ay dadku ay dhiibtaan, balse waa la xaliyey sida uu hadalka uu u dhigay. dadkaasi iyagoo codadkooda dhiibanaya meelaha ugu badan ee codka laga dhiibtay waxaa ka mid ah magaalada Tehraan. wadaadka dhinaca diinta ugu sareeya waddankaasi Iiraan Cali Khamenei ayaa codbixiyaasha ugu baaqay in ay u soo baxaan sidii doorashada ay uga qayb qaadan lahaayeen. shacabka waa kuwa go-aan ka gaari kara ayuu yidhi masiirka waddankaasi Iiraan sanadaha soo socda, balse taasi waxaa loo mari karaa ayuu yidhi in ay si weyn ay uga soo qayb qaataan doorashada. madaxweynaha waddankaasi Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ugu baaqay muwaadiniinta in si weyn ay u codeeyaan si looga gudbo dhibaatooyinka uu dhex muquranayo waddankaasi Iiraan. waxaan doonaynaa ayuu yidhi marxalad cusub in ay u furto waddankaasi Iiraan suurtagalnimada musharaxiinta hadda tartamaysa in midkood uu ku guuleysto. muwaadiniintu waxa ay ogsoon yihiin ayuu yidhi ahmiyadda ay leedahay doorasho noocan oo kale ah oo ay iyagu gacantooda ay ku jirto jihaynteeda. wadaadka isagu ah qunyar socodka oo isagu codkiisa dhiibanaya waddankaasi Iiraan Cabdinaasir Hamti ayaa waxa uu ku tilmaamay in ay suurtagal ay noqon doonto in isaga uu ku guuleysto doorashada. Hamti waxa uu sheegay markii codkiisa uu dhiibanayay
in uu waddanka uu ka saari doono daruufaha dhinaca nolosha iyo midda dhaqaale. madaxweynaha xiga ayaa noqon doona ayuu yidhi haddii codkiina aada isiisaan. madaxweynihii hore ee waddankaasi iiraan maxamuud axmed najaad ayaa isagu wax cod ah aanan dhiiban doorashada madaxtinimada, waxaana uu sheegay in uusan taageerinin musharaxiinta hadda iyagu xilka u ordaysa. waxa uu walaacu ka muujiyey qaabka doorashada loo qabanayo iyo sidoo kale guddiga doorashada, waxaana sidoo kale uu ka digay dhibaatooyin dhinaca qowmiyadaha in ay ka dhalan doonto doorashadaasi ka dhacaysa waddankaasi iiraan. madaxweynaha waddankaasi iiraan maxamed khatimi waa madaxweynihii hore waddankaasi ayaa isagu dhankiisa codkiisa dhiibtay, waxaana uu shaacu ka qaaday in shacabka looga baahan yahay in ay noqdaan kuwa usoo baxa doorashada ayna u suurtagelinin in wax fashila uu ku yimaado. waxaa suurtagala ayuu yidhi haddii doorashadani si weyn aad ugu soo baxdaan in caalamka uu sidoo kale bog cusuba uu furo dowladda waddankaasi iiraan. haddaba warbaahinta ayaa siyaabo kala duwan waxa ay u daabacayaan cidda guusha lahaan doonto ama la filan karo. wakaalada wararka ee Reuters ayaa iyadu waxa ay soo xiganaysaa warbaahinta gudaha waddankaasi iiraan. madaxa guddiga garsoorka ee waddankaasi Ibrahim Raisi ayaa isagu waxaa saaran cunaqabateyn dhinaca Mareykanka ah, balse waxaa la ogsoon yahay in uu yahay qofka ugu dhow ee doorashadaasi ku guuleysan doono. waxa uu awood iyo sidoo kale taageero uu ka haystaa ayaa layidhi ilaalada kacaanka ee waddankaasi iiraan. wakaalada France Press ayaa iyadoo dhankeedu waxa ay sheegtay inay suurtagal ay noqon doonto guusha Raisi, kaasi oo la tilmaamayo in uu hay-adaha xukuumadda iyo sidoo kale golaha shuurada ee sanadkii horeba uu isagu ahaa qof si aada uga dhex muuqday ololihiisa. Raisi ayaa isagu dhowr jeera waxa uu dacwada uu ka gudbiyey oo ashtika guddiga doorashada sida ay wax ay u wadaan. tiro badan oo xarumaha codbixinta la dhigay ayaa iyagu waxay ahaayeen kuwo waqti hore oo jimcihii la furay. dadka ayaa iyagu codkoodii si weyna u dhiibanayay. doorashadani ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo waddankaasi iiraan ay marayso ama ay dhex muquuranayso dhibaato dhinaca dhaqaalaha, bulshada iyo sidoo kale arrimo kale oo dhibaato ku ah dowladda waddankaasi iiraan oo ay ugu horeyso cunaqabateynta Mareykanka uu ku soo rogay iyo sidoo kale cudurka COVID-19 oo gacan adag ah ku haya waddankaasi iiraan. isla arrimihii waddanka iiraan ayaynu ku guda jirnay. xukuumadda Washington waxa ay sheegtay in ay ku dadaaleyso sidii ay heshiis ay uga saxiixan lahayd iiraan si loogu laabto barnaamijka nukliyeerka inta uusan xilka wareejin madaxweynaha waddanka iiraan amaba xilka la wareegin madaxweynaha cusub ee waddankaasi. mas-uul Mareykan ah ayaa waxa uu sheegay in maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ay doonayaan inay heshiis ay ku laabanayaan barnaamijka nukliyeerka 6 toddobaad gudihiisa inta uusan madaxweynaha cusub shaqada la wareegin waddankaasi iiraan in ay la galaan. mas-uulkaasi Mareykanka uu diiday magaciisa in warbaahinta loo adeegsado ayaa waxa uu sheegay intaan lasoo dhisin xukuumadda cusub ee waddankaasi iiraan waxaa su-aalo weyna laga keeni doonaa xaqiijinta heshiiskaasi. dowladda Mareykanka wax waliba ayay ku bixin doontaa ayuu yidhi sidii dib ay ugu laaban lahayd heshiiskaasi nukliyeerka. mas-uulkan waxa uu carabaabay in iiraaniyiintu iyagu ay sheegeen in doorashada hadda socota aysan wada xaajood geli karin, balse arrimahaas looma joojin doono ayuu yidhi si natiijo looga keeno sidii dowladda ay dib ay ugu laaban lahayd barnaamijkaasi. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price waxa uu sheegay in horumar laga sameeyey wadaxaajoodkii ka soconayay magaalada Vienna, waxaana uu shaacu ka qaaday in lasii ambaqaadi doono wadaxaajoodka heshiiskii nukliyeerka ee iiraan. waxuu hadalkiisa intaa uu ku daray inay sii socon doonaan in laga gudbo dhammaan caqabadaha ku gidaaman heshiiskaasi. ma jiri doonto waqti kale oo dheeraad ah oo lagu bixiyo ama wareeg lixaad ah oo doorashadaasi lagu galo, kaa oo la tilmaamayo in hadda wadahadal uu ka socdo magaaladaasi Vienna. wariyaha Al-Jazeera waxa uu leeyahay wafdiga ka socda Ruushka iyo Mareykanka waxa ay kulamo gaargaar ah ay kula qaateen magaalada Vienna wafdi Iiraaniyaan ah oo ay kala hadlayaan arrimaha nukliyeerka iyo ku laabashada Mareykanka ee heshiiskaasi. sidoo kale waxaa jirta in Mareykanka iyo Ruushka ay iska arkeen in muhiim ay tahay
in heshiiskaasi dib loogu laabto. wariyaha waxa uu leeyahay wadaxaajoodkaasi ayaa waxa uu yahay mid sidoo kale ay ka qaybgalayaan wafdi ka socda midooda yurub iyo wafdiga mareykanka oo iyagu doorbidaya in wufuudda ka socota iiraan lala fadhiisto heshiisna la gaaro. taa oo soo gabagabeynaysa ayaa la yidhi hadalhayntii ku saabsaneyd suurtagalnimada in maamulka cusub ee mareykanka ee Joe Biden uu hogaaminayo in ay dib ay ugu laabtaan heshiiskii horey uga baxay madaxweynihii ka horeeyey ee Donald Trump. maanta oo Sabti waxaa la filayaa in wareeg lixaad wadaxaajoodkaasi uu galo, kaasi oo soo bilaabmay bishii Abriil ee tagtay. kulamada dhacaya waxa ay yihiin kuwo ay ku jiraan Iiraan, Ruushka, China, France, Britain, Germany, waxaana lagu kulmayaa hoteelo ku yaala wadankaasi Austria. wafuudda ka socota dalkaasi Mareykanka ayaa iyagu waxa ay degan yihiin hotel ka gaar ah hoteelada ay wafuudda wadamadaasi ay degan yihiin, kuwaasi oo si gaargaar ah u arkaya wafuudda kale ee wadamada